waraxmatullaahi wabarakaatu. ahlan wasahlan, waa mar kale iyo ubax qorane. asxaabteena maanta waxaan ii wadnaa rootigaasoo aad iyo aad u fudud haddana u macaan badan. insha allah haddaa isku daydid asxaabay, waxaan soo qaadanay marka ugu horeyso baaquli buraan kusoo shubtay adiga iyo faamiligaada intii anfaceyso idinka taqaaniin maano. cusbo yaraan kusoo darsaday, sokoraan kusoo darsaday intaa doontid waxaan kusoo darsaday leebitada dhaladaasaan ku shubtay ka jabka ka dhamaaday. leebitaan kusoo darsaday hal qaade biyo caadi aan ku qasanayaa. waa rooti caadi ma fahanteen asxaabay? waxaa waaye isku daya habeenkoo ma aragtay aa lagu jamcaystaa ama maxay lagu casriyeystaa. hadba saa rabtida u siisanaysaa. waxa aad soo gaday ma ahan. qudaartaada gasho, hilibkaada gasho, haddaad haysan sidiisa ku kari. rootiga markuu kulul yahay aad u macaan badan yahay. annaga soo qaboobi leh soo gadanaa ma ahano. marka qasitaankana waa muhiim. aada u qaraacay, dhagaxaan kusoo qaraacaysaa ujeediin. waa noo diyaar. intuu kasoo qamiiraayo oo ka qamiiraayo la sugaa. asxaabay sidaas ooga soo tuurta insha allah. meeshaas waxaan ku haystaa hilib shiidan saa ujeediin. halkaasna baradhaha ku jirto, yaanyo, xawaajiyaashii, basal, shiishiid, barbarooni. meeshaan waxaan ku shiilan rabaa baradhadan ku shiilanayaa. filfil, basbaas iyo cusbo aan gadaal ooga soo darsaday saa ujeediin. marka asxaabay waxaa waaye marmarkoo ku tuurta insha allah. halkaan waxaan kusoo darsanay saa ujeediin baradhadii wax yaroo cusbaan ku daray si ay dhanaan u noqoto. baradhada markay bislaato maxay ahaydey aadna bajaq ee siyaysan kaaga noqonin, laakiin ha bislaato. foorna la gelina maahano. marka asxaabay isku daya. halkana basalaan kusoo darsaday. digsigii basalaan kusoo daray. 3 xabo basalaan soo jarjaray, yaryariis usoo jarjaray oo ku daray. markaan waa kana hilibkii aan kusoo darsanayaa asagana. hilibka iyo maxaa dhahay rootiga iyo adiga faamiligaada waaye. haddaa family yartihiin waa iska yareysan kartaan. haddaa badantihiin oo ilaahay nasiiyo waa badsan kartaan. marka halkaasaan hilibka kusoo karinayaa saa ujeediin. hal xabo maraq digaagaan ku darsaday. maraq digaaga dadka iska daayay weli kuma jiro. dad badanaa iska daayay, laakiin ani waa wadaa. ma aqaan waxaan ku jeclaaday. marka waa kaasaa hilibka waxaa waaye wuu isku dhegdhegaa burburi. saliidana aadaan ugu yareeyay. yaanyaan kusoo darsaday oon soo jarjaray. inay iga burburtana ma raba yaanyada. hilibka inaan burburiyana waa rabaa. waa kaasaa shiishiidaan kusoo darsaday. si fiican inuu kaaga karo waa hilibka. meesha carfisadii aan kusoo darsaday. carfiskii waa xawaaji iyo kabsar iyo toon bis. 2 xawaaji, kabsar iyo toon bis aan ku darsaday. cusbaan kusoo darsaday haddana. asxaabay mar haddaa jikada gashid filfil yaraan kusoo darsaday. jikada haddaa gashid waxaa waaye waa kuu fududaane. filfishaas shiidan aan kusoo darsaday qaadada fiideeda. marka waxaa waaye haddii aad tiraahid maxay ahaydey baradhadii oon soo shiilay oo bisil aan ku darsaday. maasha allah. hilibkan wax kasta waa ku isticmaali kartaa sidaan markuu yahay. wax kasta waa ku cuni kartaa. wax kastoo iidaan u noqon karaa ma fahanteen. laakiin ani hadda waxaa waaye muhiimadeeda rootigaas waaye. barbarooni 2 xabo barbarooni aan kusoo darsado yaryar. halkaas waa isku dhammaatay saan filaayo. walaaq basbaas yaraan ku darsaday. waa isku dhammaatay asxaabey maasha allah. kan waa diyaar. saasaan kusoo diyaarsaday.
waxaan u tagay burkii oo soo fuuray ama soo qamiiray. waa inaad dejisaa marka hore aarayada ka bixisaa. waa kasaa kadib rootiga intaa rabtid u kuuskuuso, ama waaweyn ka dhigo ama yaryar ka dhigo, adiga jooskaada waaye markaan. laakiin qaraaca jooskaada maaha, waa jooska burka. buroo dhan waxa waaye muhiimadiisa inaad si fiican u qaraacdid waaye. halkaasaan soo saftay, boobsiis waaye, xataa ma sii dadin kan, waa boobsiinayaa. bur meesha lagu haayana daqsiga nafta kuu keenaa, nafta maanta dhan buri. hal xabo waxaa jira mintida oo kaa tegeeninbo daqsiga oo la ficiltamaysid. waa soo fidiyey, waxaan kusoo shubayaa 3 qaado, midkii rootigiiba 3 qaado waan kusoo shubayaa. saasaan kusoo duubayaa, ujeediin dhab 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 isku sii. waxaa waaye ma furmaayo leen foorna la gelinaa maaho. saas noogu soo baxay, soo ma jeedin markii la duubay. soo qabso birtaada, dhab ku siiso. bacdim iyo oolin oo maxay ahayd la saarayay oo ofinka lala gelinayay. sidiisaasaan ku gashtay, ma fahanteen? soo ku soo baxayna waa aragteen. saas u fidi, haddana hilibkaada kusoo rido. duubka dhab ku sii iyo sakaafa kanin. inkastoo saliidda markii lagu dubaayay oo saan markii loo duubo inuu furto macquul tahay, markan foorna waaye ma furanayso, sababtoo ah meeshii aad ka duubto hoos aa marisayba. marka kana kii labaad kala fogee kastoo waxaa la rabaa haddana inuu qamiiro soo fuuro marka uu isku dhagaa. inuu isku dhago waa muhiim, laakiin dhab inuu isku dhaho iscariiriyo ma fiicna. waa kana haddana kusoo shub. markaasaan hilibkayuu ka yaraaninbo dhab. qofkii maxaan ku dhahay hilibkiisa iyo rootiga isku goosto, waxaa waa casho maasha allah waaye. cashadaasaa marka caawa asxaabay kasoo tuurtay. saa ujeedaan nagala faa'iidaysta, ku tuurta haddee markiina insha allah. waa kasaa leen dheer aa la soo geliyey, dheer dheer iyo gaagaabba waa laga dhigayaa insha allah. sidaasaan kusoo dhammaystirayaa, ujeediin. waa kana hadda waxaa ii bilowday kuuskuuskii. kuuskuuskii aa ii bilowday. kuuskuuskan waxaa waaye geesaha iskaga keen, ujeedido dhab isku sii. waa kaas uu u baahan yahay oo kale ma lahan. waa kaasaa kastoo soo qamiiro, foornada sii shido. waxaan ku dhahay 200 sii geyso. caano boori ukuntii wax yaroo biyaan ku daraay, inaan duubaan u maleynaayay. wax yaroo biyaan ku daraayaa bes. rootigii soo fuure marmari, waa tartiib u mari. haddaa ku riixdid waxaa waaye waa aarya baxaaba maho. marka tartiibaa loo marmarinaa, waa la salaaxaa le bes. maasha allah, sidaasaan kusoo dhammaystireynaa, ujeediin. ukunta waa ka dhaafi kartaa, caano bisaa marin kartaa. caanaha waa ka dhaafi kartaa, ukun bisaa marin kartaa. muhiim ah inaa isku dartid. waa kana foornadii aan dalaq siiyey, saa ujeediin. weli waxaa noo sii dhiman. waa kii kalaan geliyey. maasha allah, dhaqsii kasoo tuurta wallaahi maasha allah. waa kana sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay, ujeediin. maasha allah. waa kana rooti waxaa waaye hadduu xataa hilib ku jirin oo saan u kulul yahay, intaad doontaa ku cuni kartaa. marka asxaabay nagala faa'iidaysta insha allahu tacaalaa. cashadaas aadkii aadka u quruxda badan leh sidaas ooga soo tuurta. waa wax guriga nii yaalo intuu ilaahay siiyey. waxa waa intii kalena ilaahay ha siiyo insha allah. marka sidaanu noogu soo baxay, gaabgaabkina kuuskuuskina sidaanu ku soo baxay. maasha allah, tabaarakallah.
waa kaas sidaas noogu soo baxay quruxda badan oo ujeedin maasha allah. marka asxaabay waxaa waaye maqaayadan ka doonanaa iyo cashaan xag soo dhiibaa iyo saanaa ka qurux badan. marka waxaa waaye barashadana qof caloosha hooya kala soo baxay male. barta kariya. assalaamu calaykum waraxmatullah.